haddaad ku cusub tahay calansida janaal fadlan subscribe dhaho janaalka si wax kasta cusub kugu soo dhacaan taabo halka aad ku qortaa subscribe ka bacdi taabo كات هاي سامالي محمد سو صعدة ومسكينتي حاوكين اهيت ومسكينتي علي وفنانة ديني سوماليات ولو أنا عن فيسبوك جعلان إيو لايف وأكتهيني waxay isoo geliyo iska dareemi kartiin soo wada baxa haye بسم الله الرحمن الرحيم horta caawa ookiyalkan idin gashana arrintan arrin xasaasi ah waaye Soomaali maxamed soo wada baxa garta idinkaa goon yaqaanee maxkamadii maanta oo fanaaniinta iyo ummadda oo dhan idinka waa mogta waxa oo maanta wax sheego oo garta goon yaqaano oo ummadii kala bixinayo waaba dadkii meediyaha waay gaar ahaan Facebook waxaana qatay golihii maxkamadda cadaaladda ummadda kala saaraya waxaan rabaa caawa inaan wax yar idinkaga sheega halkan aniga horta ookiyaalkayga weli ma gashanin dadkan waa soo galayaan waa u jeedaa maasha allah walo Facebook aanan aqoon leefkiisa mar walbo ookiyaalkan ii gashana laakiin ahay soo socda kiniyaa maqasheen soo wada baxa soo socda waxaa wakiinay taagan tahay soo socda waa aniga soo socda meeshaanaan rabaa inaan warka keenay war aa idin wadaa warna waa jeceshiin waa niyogahay soo socda sheergareeya warkan hala sheergareeyo ii sheergareeya soo socda soo buuxsama wara idin hayaa waxaan rabaa inaan insha allah meeshaan wax yar aan ka dhaho oo aan maanta aan kaga hadlaayo fankeena inkastoo dad iga waaweyn fanaaniin iga waaweyn jiraan kuwa ila mid ay jiraan oo levelkayga kuwa iga yaryar ay jiraan laakiin waxaan rabaa arrinkan maadaama laga hadli waayay laga wada aamusay ee qof walba ay ka gaabsatay inaan ka hadlaan rabaa fanaanka xaquuqdiisa iyo fanka xaquuqdiisa iyo wax alle iyo wax oo ku saabsan maanta fanka Soomaaliyeed inta aniga markaas maskaxdayda ama aragti ahaan aniga aan ka qabo inaan ka hadlaan rabaa soo buuxsama waa idin jeedaa maasha allah waxaa dhantiin ma hela laakiin ookiyaalka idin gashna marka buuxsamo iisiga wale dhaaxaha soo socda laysdhahay meeqaasoo tihiin waa yartihiin weli waa yartihiin sheergareeya hala soo buuxsamo meesha mawduuca marka la bilaabayo waa inaa horta dad kastoo tuuran inaa naqatiin yaa siinka soo socda sheergareeya aniga facebookgayga life laguma yaqaano maskiinta native lifena ma taqaano marka soo buuxsama isgaagaarsiisa ii arkaan waxaa wakiinaaba qadka ku jirtaa dhahan maxaa kaaga galaaday howshaada qabso wado waa idin salaamaya dhammaantiin waxaan ku iri asalaamu calaykum waraxmatulla dhammaan waa idin salaamayaa waxaa u gashta ookiyaalka waxa waaye inaan nii arko waxa sheegaysiin inaan arkaan rabaa moogtaade oo akhriyo yaa hey alxamdulilah rabbilcaalamiin dhammaan waa fiicannahay waa mahadsantiin salaantiin waa idinka qaada dhammaantiin dee wax aniga iguma taqaanin xasrad iguma taqaanin wax wanaage wax wanaag unbaa nii wadaa hadduu alla idmo idinkana waxa waaye maxkamaddii ayaa tihiin maadaama fanaaniin ahaan anaga aan maalin walba isqabsano maalin walbana aan sanadkiiba 2 jeer inaan isqabsano maybe laga yaabay ama 3 mar dee fanaaniintu waxa waaye inaan insha allah tacaala ayagana xaquuqdoodii ay dareemaan wixii oo shacabka ay xaquuq u leeyihiinna ay ka helaan ayagana laf ahaantooda ay isku ixtiraamaan sida
qof walba fankiisa uu kan kale ku ixtiraamo uu ku darajeeyo aan la isku xadgudbin wax wanaag un baan ka hadli rabaa hadduu alla idmo waa taqaaniin inaanan aniga aanan xumaan iyo markaas qof jeclaysiba intaba aanan u soo galaynin hadduu alla idmo ya waa nii jeedaa maasha allah koley waa buuxidaan hadduu alla idmo heesa inoo dambeysa hees iyo ka badanba caawa waa helaysaa insha allah laakiin horta mawduuca aan wadana aan ka hadalno hadduu alla idmo noo sheergareeya waa idin salaame dhammaan sidaa ii jeceshiin ayaa idin jeclaa faaniskayga dhammaan iyo asxaabtayda iyo dhammaan friendiska pagekayga iigu jira asxaabtayda ah waa idin salaamayaa fanka mar walba in lagu dhex jiro oo laga dhex muuqdo muhiim ma ahan waa mar inaad bareeg ka qaadataa waxaa imaan kara howlo gaar ah oo markaas adiga ku mashquulin karo busy ah ku noqon kartid marka maalmahan howlaha gaarka ah isaga maqnaay waxaan idin sheegi rabaa caawa insha allah hadduu alla idmo sheergareeya waa idin jeedaa barnaamijka aan ka hadli rabana waa barnaamij ku saabsan fanka soomaaliyeed kii hore kii dhexe iyo kii dambaba gaar ahaan waxaan ka hadli rabaa xaquuqda qofka fanka uu ku leeyahay iyo waxa oo ka leeyahay labadaas ayaan ka hadli rabaa fanka inkastoo la iiga khibrad badan yahay la iiga khibrad weyn yahay oo fanaaniin waaweyn jiraan oo qaar fikradaha la kala duwan yahay laakiin aniga waxaan ka hadli rabaa maanta mawduucayga maxaan isku haysanaa annaga haddaan fanaaniin nahay maxaa isku haysanaa weliba fanaaniinta jiilka hadda maanta joogo kuwii waaweynaa sharaf iyo wanaag iyo ixtiraam ayay ku wada joogeen anaga kuwa maanta maxaan isku haysanaa walaalayaal way ay isku haystaan fanaaniinta maanta maxaa ka halaysan maxayse maalin walba meediyaha problem iyo buuqi iyo waxa aan markaas munaasabkooda ahayn ay ugu soo galaan soo rol style maaha fanaaniinta soo dadkii lagu dayanayo oo meediyaha shacabka markay usoo istaagaan wax wanaag inay kaga hadlaan ama u sheegaan loo baahnay ma ahan fanaaniinta soomaaliyeed waa sax nin fanaanka uu noqdo markuu meediyaha soo galayo kii wax fiican u sheegi lahay dadkiisa waa indhaha shacabka waa dhagaha shacabka waxay u sheegaan ayay qaataan marka waxaan rabaa ma ahan wax xumaan ah in laga hadlo qofka fanaanka ah xaquuqdiisa maxaa lagu qabsan karaa maxaase laga leeyahay maxaase lagu leeyahay muxuuse asaga ku leeyahay oo fanka uu ku leeyahay fanka wuxuu ku leeyahay ayaan ka hadli rabnaa wuxuu ku leeyahay iyo wuxuu ka leeyahay oo markaas fanka inuu yahay badweyn inuu yahay aan la kala lahayn fanka waa fan aniga maanta xawakiin ah ha isoo wicina please ha isoo wicina waxaan ku jiraa live waa u jeedaan live ayaan ku jiraa ha isoo yaan la isoo wicin sheergareeya waa idin jeedaa dhammaan waa ku wada jirtaan laki uma hiilinayid
waa kuu jeedaa qofka dhahayo laki ma u hiilinaysaa. Laki waa gabar fanaanad Soomaaliyeed. Saaxiibtinimadeena xagga haddii laga istaago waa gabar Soomaaliyeed oo fanaanad ah. Gabadha kaleentood ee Faadimiina iyadana waa gabar fanaanad ah oo Soomaaliyeed. Umana kala hiilinaayo. Mawduucana ma ahan inaan kaga hadlaayo labadaas gabdhood inaan kaga hadlaayo ma ahan. Sidiisoo fanka ayaan ka hadli rabaa. Mawduucan wuxuu ku saabsan yahay fanka. Anigaba fanaanadan ahay. Waxaan xaquuq u leeyahay. Haddii la iqabsadana wixii markaas aniga xaquuq aan ka leeyahay oo qofkaas iida ay ugu qabsata waxay xaquuq ku leedahay ayaa la rabaa inaa idinka kala goysaan oo aad maxkamad u noqotaan oo maanta aan waxa mawduucaas aan ka hadlay inaa idinka garsoor ku noqotiin aan rabaa. Macnaha waxa igu soo noqotay oo igu qasbay inaan soo galo maxaa isku haysatiin waaye. Maxaa la isku haystaa? Maxaa la isku qabsanayaa? Maxaa fanka la isku qabsanayaa? Maxaa heesaha la isugu qabsanayaa? Taas ayaan ka hadlayaa ani. Fanka waa badweyn nin walba meeshuu raba ka darsan karo. Waay la isku qabsanaa maalin walbo fadeexad aad meelaha iskugu imaanaysiin fadeexad aan meelaha munaasabka ahayn aa ula imaanaysiin. Haddii aad wax isku qabtid adiga aad qof kaleentood wax u qabtid waa inaad si wanaaga labadiina u wada hadashaan. Sida fanaaniinta isma qaban karaan horta lama dhihi karo runtiin waa. oo fanaaniinta guud ahaan ayaan ka hadlayaa. Kuwa markaas is haystaa waay sharafta maxaa u diiday inay si gooni ah inay u wada hadlaan oo markaas labadooda ay dhammaystaan wixii ay markaas isku haystaan. Maxaa keenay in meediyaha bulshada ay soo gaarto ay imaado in meel facshir oo publica inaad isugu imaadiin aad hadal markaas munaasib ahayn qof walba qofka kaleentood uga soo jawaab ama oo kasoo dhaho maxaa idinku qasbay aawo sharaftiini aawo hanaankii iyo hogaankii aa u hayseen ummadda Soomaaliyeed ku dayashadiini masaanbaa inaad lababa maalin isqabsato. Naaw taas ayaan ka hadlayaa mawduuceygana waa taas. Marka ugu horeysa aan ka hadlee horta inaan noo sheer gareysaan ayaan jeclahay hadda kahor maanta dhan oo idinkugu celcelinaya si dadka ay u wada gaaraan mawduuca inta aanan bilaabin. Arrinkan kuma jirto laakiin dadka kusoo celcelinaya waa saaxiibtay waa ogahay laakiin kuma jirto arrintan because uma heelinayo laakiin waxyaabaha dhacaya ayaan ka hadlayaa. Cidna uma heelinayo labada fanaan aad ka hadlaysaan iminka waa laba fanaan laba gabdhood oo walaalahay oo fanka ku jiro. Waxa aan ka hadlayaana waa waxyaabaha oo maanta dhacayo ay ka kowtaa arrintaas oo kaleentood ay labadaas xataa ay ka mid yihiin. Iyaga kaliya ma ahan fanaaniinta waa badan yihiin is haysta mar walbo oo isku soo gala live-ka. Marka guud ahaan ayaanba ka hadlayaa maanta. Wayna ka mid yihiin taasna way ka mid tahay. Hadda ka horna waxaan ahay gabadhii koowaad ee markii arrintan oo kale ay timidna sida tooska ah meediyaha oga hadashay ayagoo fanaaniin badan oo Soomaaliyeed ay buuxaan ay joogaan markaas ayna ka soo hadlin. Ma fahantay? Ma isiinay damiirkayga inaan fiirsado dad fanaaniin markaas ah oo ama wiilal ah ama gabdho ah inay meediyaha isu soo galaan please ha isoo wicina waa ii jeedaan live ayaan ku jira ha isoo wicina asxaan ii sameeya yaan la isoo wicin ilaa mawduucayga aan ka hadlo. Qofkii doonaya inay ila hadasho waa marka aan ka baxo live-ka markaas kadib waa ila hadli kartaa. Inta ka hor aysan laakiin ha isoo wicin. Waa idin salaamayaa dadka mawduuca gadaal ka soo galay oo markaas aanan markii hore intood aanan soo gelin waxaan kaga hadli rabaa mawduucan waxaan kaga hadli rabaa fanka Soomaaliyeed ayaan kaga hadli rabaa sababtoo ah waxaa igu kalifay inaan ka hadlo fanaaniintayda oo maalin walba isku haysta hees koobi oo fanaaniinteydii isku haysta mar walba.
ayaan aawadiis usoo galay horta waxaan idin sheegaa mawduuca waan gudagalaynaa insha allah hadda ayaan bilaabaynaa sida aad la wada socotaan dhammaan dadka soomaaliyeed inta saaxiibka u ah fanaaniinta ama fanka saaxiibka la ah dadka dhan kuma wada jiraan dad gaar ahoo waxaa jira xataa oo markaas fanaaniinta khibrad badan u leh oo la joogi jira waqtiyada heesaha ay soo saari jireen waqtiyada ay heesaha sameeyaan inta badan oo markaas la socda iyo dad heesaha jecel oo ayagana aan fanaaniinta aan markaas ku xirneen laakiin aad fanka ula socda soomaalida ama fanka guud ahaanba la socdo oo aad u jecel majority waxaa badan dadka fanka aad ula socda soomaalida aad ayay suugaanta u dhegaysataa aad ayay fanka ula socotaa marka maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinkan horta number 1 waxa waaye horta fanka soomaaliyeed inkastoo fanka aniga iga weyn yaho aanan maanta guud ahaanba aan soo wada qaadan karin laakiin ra'yi ahaanteyda inta aan ka fahansanahay ama aan ka ogahay ayaan rabaa inaan kaga hadlo meesha for example waxaa jiro fanaaniin waaweyn oo xataa caalamka oo maanta magac weyn ku leh kuwa caalamka haddaan soo qaato for example ayaan ka hadlayaa sida Michael Jackson oo kale Bob Marley oo kale Whitney Houston oo kale Whitney Houston maxaa la dhahaa gabadhii kale Tina Jackson fanaaniin waaweyn oo waxaa jirta oo adduunka maanta caanka ah oo wada taqaanaan heesahoodana waa la koobigareeyaa oo waa la qaadaa ilaa maanta kuwa dhintay iyo kuwa noolba wixii isugu jira waa la qaadaa iyo wixii dhintay laakiin heesooda copyright ayay lahaayeen copyrightkooda waxaa xaquuq u leh oo la siiyaa oo lagu tixgeliyaa maadaama dib loo soo qaadayo dadkoodii ayaa lagu ixtiraamaa oo markaas oo dib copyrightkooda loo siiyaa oo iska leh dhaxalkaas oo macnaha copyrightka xaquuqda laakiin waa la qaadaaho cidna qofkaas kale looma diido inay dib u qaato oo lama dhaho maxaa u qaadaysaa heestaas oo kaleentood aniga familkayga lahay ama aniga walaalkay qaada ama anaa walaashay qaada lama dhaho waa la qaadaa laakiin xaquuqdiisa waxaa la siiyaa qofka oo markaas ehelkiisa ah anaga marka soomaali ahaan anaga ma lihin copyright ma lihin fankeena kii hore iyo kan maanta jiro copyright ma lihin dhibaatada horta fanka soomaaliyeed haysato aan idinkaga hadlayaa xaquuq ma haysto oo maanta lagu doodo oo qof kaleentood haddii heestaas ay kaa soo qaado aad ku qabsan kartid ma haysatid dadkeena soomaaliyeed waa fara ku tiris inta leh markaas xaquuqda fanka sida maamo Maryam Mursal oo kale aytanku ugu jiraan heeso iyo wiil la dhahayo asna fanaaniinta maanta jirta arjamac ayaa ayagana xaquuq leh inta kale soomaalida wax xaquuq oo leeyahay fankooda ma jirto kasoo gudub fanaaniinta waaweyneed iyaga laftooda ayaa waxay soo qaadi jireen heeso markaas heeso dad ayaga ka waaweyn ay soo qaadeen ay soo qaadi jireen ayaga laf ahaantood anaga maanta aanan aqoono idinka aad u taqaanin ayaga inay soo qaadeen hadda fanaaniinteenii hore oo hadda heesta for example aan idinkaaga soo qaado heesta maanta isku haystaan gabadheena wardo karaama maamo faadimo qaasan hiloole gabadheeda allaha naxariistee maamadeena fanka gabadheeda iyadana waa dhal fanaan waa ku ixtiraameynaa full respect ayaan siinaynaa walaasheen heesta ee hadda ay laki isku haysteen oo kale oo ahayd heesta mudankey waxay ka dhigtay inaygu meel gaartee waxaa qaaday oo u naqaanaa buunis maxamed mayow buunis waa fanaaniinta soomaaliyeed ka mid ah oo markaas jiray oo fanaaniinta maanta jiilka hadda soo kacaya inta badan ayna aqoonin laakiin anagaa naqaana jiilkeena waxaan u naqaan heestaas inuu asiga leeyahay ma laha heestaas rasmigeeda waxaa iskale nin kaloo dhintaa iskale maantana waxaa isku haysta laxankeedii iyo muusigeedii ayaa waxay isku haystaan
warda karaama iyo laki xaaji wacis taas marka waxay ila muuqataa fanaanka shalay soo qaada anaga generation ahaanba aan u naqaan inuusanba asiga xataa heesti lahayn oo heestaas laxankeeda iyo miraheeda nin kale hore u lahaa oo dhinta allah u naxariistee oo dadkii waaweynaayo fanka waagaas jooga noo sheegeen maanta aan leenahay see marka anaga waxaan u naqaanay cabdiqaadir mayow buunis ma nin kalaaba iska lahay heesta maantana waxay taagan tahay inay wardo iyo laki isku qabsadaan taas waa wrong way inay isku qabsadaan shir lasoo istaagaan heestaas ma ahan walaa laxanay isku qabsan karin walaa musiga isku qabsan karin musigi waa original ninkaas ayaa iskale heesta laxankeedana original ninkaasaa iskale marka sidee la isugu qabsan karaa hees koobi ka koobi ah ayaanba maanta waxaan la yaabanay fanka soomaaliya inaan liicay oo god mugdi galay maanta oo qarnigiisii aan anaga maanta qarni maanta wax lays qabsan ma waxaan joognaa waqtigaas ayaga ay joogeen xitee fursadaha aan maanta haysan waxay dhahaan fanaaniinta maanta jirto fanaaniinta hore fursad fiican ay haysteen laakiin anagaa kasii fursad fiican waay aa uga sii fursad fiicannahan kuu sheega waaga oo soo gelayay fanka fanaankaas hore waxaa laga yaabaa dariiqadaha ugu adag inuu kusoo galo fanka laakiin anaga maanta waxaan kasoo gelaynaa jaranjarada ugu horeyso ay tahay lacagtaada taas ma qalada beenaha mise waa sax maanta haddii aad haysato lacag kan laxanka kuu saarayo kan heesaha ku siinayo kan musiga kuu garaacayo taalantigaaga iyo adiga waxaad tahay dhan kuma fiirinaye lacagtiisaa u daran wuuna kaa qaadan uu kugu soo saaraya heesta waana soo qaadaysaa maanta marka meeshaas aan joogno ayaa hees dad oo waqtigoodii dhibaato iyo waxaan ku iri jariimo kusoo maro dhibaato adag kusoo maro markay fankoodii soo bilaabaya inaan heesoodii isku qaqabsano iyo xaquuq idin siiya idinka waa maya taas waa qalad waxaa maanta xaquuq leh oo xaquuq ina ugu dhoorno leh heesaha maanta la isku qabsanayo ama faadimo qaasin ha ahaato ama magool ha ahaato ama fanaaniintii kaleentooda waaweyne ha ahaa xaquuqdooda ayaa lagu xadgudbay fankoodii ayaa dhulka lagu jiidayaa fankoodiina waa waxa dhulka lala gelaya ma ahan ee fan ay leedahay faadimiina ama fan ay leedahay laki xaaji wacees ama fan ay leedahay qof kaleo markaas hadda kuwa hadda muuqdan ka hadlaya ama aniga iga soo qaad ama mid kaleentood haddaan isku qabsano waxaan dhulka la galnay fankii faadimo qaasin ama magool ama hibanuura ama qadradan haddaan isku qabsana hees ee gabdhahaas waaweyn ee waqtiga iyo jindiga iyo timeka soo siiyey ma ahan ku weyne inaan isku qabsanay waa fan islaameed waxaan isku qabsanay ay waqti geliyeen ee weliba xaquuqdoodii aan la siinin ma fahanteen marka fanka soomaaliyeed meeshii oo joogo ayaa idin tusaya forosaami waxaan idin soo qaadayaa heesaha maanta la qaado oo soomaaliyeed sida heesta sahra dawow kalentood diinley cadalla sida cabdullaahi baastow heestii oo soo qaadaya soomaaliya nabad waxaa soo qaadaya nin caddaane maxaa loogu qabsan waaye hadduu xaquuq fan soomaaliyeed xaquuqu leeyahay nin gaalaatay heesta bartan soo dhig lacagteeda talyaaniya nataa maxaa loo dhiiba heesaha sahra dawo ee ka qaad jirtay waddankeena markuu nabad ahaa maanta niman etoobiyaan iyo naaga etoobiyana soo qaado maxaa loogu qabsan waaye heesaha xaquuqdooda maxaa loo dabageli waaye maxaa loogu qabsan waaye haddii uu xaquuq leeyahay fankeena soomaaliyeed alif ilaa ya waaye hees waxa arrinta meesha taala waxa dawadeedana waxaan laga rabaa idinkaalni laga rabaa fanaaniinta soomaaliyeed waa ka gaabsadeen waa ka aamuseen shacabku waxay leeyihiin hebel iyo hebel war hebel iyo hebel heesahooda ma aha waxa laysku haystee waa hees qof ay waqti iyo time iyo jundi soo gelisay maanta aniga waxaan dhihi karaa heestayda ayaan dhihi karaa music markaan ka hadlayo ama hees markaan ka hadlayo waxaan ka hadli karaa mid aniga aan leeyahay ayaan dhihi karaa anaa iska leh taas maxay tahay waa heesta dhoof jecel dhoof jacayl u darana allahayu markaan qaadayo heestaas anaa iskale miraheedaa la ii keenay
laxankeeda la ii saaray cali shaacira ii saaray miraheeda hibaaqa ii samaysay abwaanad hibaaq muusigana cabdixakiim farayara ii tumay codkana waxa iiga qabtay maxamed karaama dee heestaas anigaa markaas gaar ahaan u leh muusigeedaan ku doodi karaa cidda igu qabsato laxankeedaan ku doodi karaa haddii hees kale laiga kor saarto miro ahaan haddii la iga qaado laftoodii aan qabsan karaa xuquuqdoodii anaa markaas heestaas anaa la igu bartay oo anaa masrax marka ugu horreysa lasoo istaagay waa ku doodi karaa laakiin marka maanta aan hees kaleentood ku doodo wallaahi runtii waxaa meel weyn oo weyn looga dhacay fanaaniinteeni waaweyneed first one waxaan aniga idinka rabaa marka soomaaliyay fanka xaquuqdiisa in maanta fanaaniintii kuwii dhintay iyo kuwa aan maanta ka gaabsadaba fanka in la isku qaqabsadaa mise waa in wadajir inti la iskaashado oo la xasuusto fanaaniintii oo nin walba meeshuu raba anigaa soo qaadi raba beri dambe ma la igu qabsan doonaa heesaha waxaan jeclahay qadra daahir waxaan jeclahay heesaha xabiib xasan tooxow ma la igu qabsan doonaa iyagana heesahaas ma la igu qabsan doonaa anaa raba oo fankii ku jiro inaan soo qaado fanaaniintayda waaweyneed heesahooda marka ma xaquuq ba inaan fanaan kaleentood heestiisa aniga hadhow qof ilmihiisa igu qabsado ma igu qabsi karyo waa xaquuq xaq baan ku leeyahay inaan heesaha qaado maanta qadri daahir gabadheeda haddee fan ku jirto for example aniga heesaheeda aan soo qaado waa jecelahay beenna idin sheegayo haddii ay maanta aysan joogin ama ha joogtay aan heeso inaan la iga xigin aan aaminsanahay oon la iga xigin oon qaadi karo ayaan aaminsanahay fanaaniinta hadda joogta sidoo kale heesahooda inaan la iga xigin oon qaadi karo ayaan aaminsanahay xaquuqna waxaa igu leh fanka inaan ku xuso markaan qaadayo waa inaan ku xuso fanaankii xaquuqdiisa maanta fankeena waa taas inaan dhaho waa xasuustii faadimo qaasin hiloolo waa xasuustii magool waa xasuustii heblaayo waa xasuustii fanaankaas aan heestiisa qaadayo waa inaan ku xusaa heestiisa oon dhaho hebel ayaa qaaday waana ku xasuusanaya waa xasuustiisa haddaan intaas samayn waayo waa aniga dullinimo aan fanka markaas la soo galay iyo ulakaca markaas iyo akhlaaq daro markaas aniga aan markaas aan u bareero wa laakiin waa qaadi karaa heesta aan doono damanyaala ma ahan heesaha soomaalida ilaa etoobiyana naga qaado hooye maanta ma anagiyo xaquuq u leh oo xaq u leh inaan isku qaqabsanaa ma anagiyo afkeeni soomaaliyeed oo xaq u leh suugaanteena inaan soo xasuusino jiilka kaleentoodna aan gaarsiino maanta naga dambeeyo ee saddexaad inaan gaarsiino ma maanta gaartay in anagii isku qabsano iska xasidno heesihii fanaaniintii waaweyneed ay soo qaadeen waa maya taas qalad waay waa inaan jiilka soo socda aan gaarsiina heesahoodii si ayn xasuustoodii u lumin inaanan isku qaqabsanin oon anaga aan sii wadno halkii ka sii wadno oo aan sii dadaalno oon sii jiidno fanki oo aan gaarsiino meesha anaga markaas aynala ay waqtiga oo nooga ekaado sida ayagoo kale meeshaas markay gaareen heerka ay kaga baxayeen markaan gaarno ama qof iska dhinta ha noqdo ama qof noolo ka taayar garowda ha ahaato ama qof iyada ka hanuuntay oo ka tagtay qofkii markaas ka hanuuno ka tagaaba fanaankiis waaba yiriba waan ka hanuunay qofkii laakiin fankiisi asigoo nool ama jiro kaga hara meeshii waa in lagu xasuustaahoo markaas lasii wadaawo jiilka soo socda iyo kuwa kaleba lasii gaarsiiyaa waa inay xaquuqda ay leeyihiin aan ugu abaalgudnaa inaan dadki sii ogaysiino fankoodii ay ku soo tabcayeen inay jiilalka soo socdana ay bartaan maaha keliya inay anaga heesahayna keliya ay bartaan oo inay sii bartaan ayagana fanaaniin naga sii horeysa naga waaweyn aan ku dayanay oo hooyooyinkeena iyo aabayaalkeena ahaa oo anaga aan ku soo dayan inay jireen inay ogaadaan ay bartaan marka walaalayaal xumaanna ma ahan inaan ka hadlo
xaquuqda fanka ma ahan inaan dad u kala hiliyey cawaannimona looma baahno waa inaad taarget ka dhigataa tan saxda ah oo runta ah inaad taarget ka dhigatid wa qofna uma hiilinayo aniga laki dhinacayga iima gelayso qabriga hataan galo munkar iyo munakiir anoo i weydiinaya su-aasha faadumiinina dhinaca iima galayso gabadheena wardana aniga waxaan ula hadlayaa waa inaan ku ixtiraamayo fanka iyadana oo micnaha markaan kasoo qaaday for example aan kusoo qaaday inaan ku hadlaayo inay tahay horta iyada run ahaantii inay tahay dadkii dhaxalka fanka markaas oo loo baahanay maanta inay ayagii aan tusaale aan weydiisano iyo waxyaabihii markaas ayaga ilan lagu dhalay oo markaas xaquuqdii iyo meesha aan fanka waxa uu yahay ila maamadii fanka ayaa dhashay wardo waa inaan ku ixtiraamnaa waa wixii inay noo sheegto inaan markaas aan ogaano oo wixii sax iyo wixii qalad inaan qaadan iyadan ka rabnaa inay wax noo sheegto waayo fanka wax badan inooga ogtaha waa lagu dhalay walaashay markaan kusoo qaadanayo xumaan kuguma soo qaadanin macnaha heesta aan ka hadlaya marka gabdhahan kaleentooda iyagana walaalahay ah markaan soo qaadanayo xumaan uma soo qaadan for example dad waxa socdo waaye waxa socdo way ay u dhacayaan ayaan ka hadlaya way sabab maxaa dhacay ma fankii ayaa idin deeqi waayey ma fankaana deeqi waayey haddaan nahay fanaaniinta ma waxa fanaaniin maanta jirto ee naga horreeyay heesooda haddaan nin walba doc ka soo qabsada ayaan dhamaystiri karnaa heesooda inaan soo wada qaadno waa maya runtaada haddii la sheego nin walba heesuhu lahaa haddaan dhahno nin hebel heestiisa qod ka soo qaada fanaan hebel aan qaar ka soo qaada fanaan hebel ma dhamaystiri karno run ahaantii waana loo baahan yahay xasuus waaye oo inaad fanaaniintii soo xasuusisid kaa horeeyay dadka waa qasab inaad jiilka soo socda ay bartaan waa qasab inay suugaanti ay dadka hore iyo abwaanadii iyo musishinadii inaan dadka dib loo soo xasuusiyo waa qasab marka walaalayaal ee soomaaliyay anaga xaquuq inama siisan markii hore dadka oo waxaan ka hadlayaa shacabka ah haddana waxaad kala jiidin fanaaniin maanta jirto oo aan heesahoodii aanan isku haysin heesahoodii iskuma haystaan yaa u codeyn lahayd hebel iyo hebelo qalad waa heesahaas laysku codeynaayo oo labadaas fanaan loo soo istaajiyey ayaga malaha ee dad baa kusoo tabcay oo waqti soo geliyey labadaas fanaan ayaana xusideeda iskale ee labadan is haysata xusid kuma laha firistiwan taasaa idin sheegayaa wadiiqada fanka idinka laf ahaantiina waxaad uga jirtaan dadka oo markaas hagaaga aan ku wadin inta wanaaga oo u fasirayso oo wanaageeda wado waan uga abaalgudaynaa laakiin inta xumaanta ku wado waxaan xasuusinayaa aniga in fanka ay leeyihin hebla iyo heblaayo oo laysku haysto inaysan xaquuq ahayn labadoodba xaquuq u lahayn ay yihiin xasuusin fanaanka kale inay dadka ay xasuusinayaan dhaxal waxaa ku leedahay heesta adiga aad soo qaaday aad leedahay aad tumatay jundiga gelisay taamka gelisay lacagta kala baxday taas waxaa xaquuq u leeyahay fankaas taasaana ku ammaani kartaa challengena aa qof kale kula gelin kartaa wasalaamu calaykum waan kastoo daalay marka waad mahadsantihiin fanaaniinta ee walaalahayga ah waxaan dhammaan u sheegayaa badweyn waay fanka soomaaliyeed mana la kala lahaa ha idin deeqa fanka soomaaliyeed ha idin deeqa maalin walba isqabqabsi iyo facshir iyo fadeexo waa laga fiican yahay dadkii shacabka ku dayan lahaayeen indhahoodiyaa tihiin ma ahan inaa maalin walba aflagaada aad la idinka dhaxlo ma ahan in nilaga dhaxlo isjiijiid ma ahan in nilaga dhaxlo wax aanan munaasibkiina ahayn oo magaciini xataa dhulka la gelaayo naqda dad magacoodana ilaaliyo bulshadoodana wax fiican u sheega waadna mahadsantihiin dhammaan waxaana ka codsanayaa hadalkayga gunaanadkiisa fanaaniinta ishaysata dhammaan ee soomaaliyeed inaad caloosha isu furtaan wanaagga wada fiirisaan
oo wada jirna waxaad ku qabsataan fanka marka ugu horeysaba ma ahan wax maanta ajir idinka soo galayo markas asagoo ajir aa idinka soo galaynin inaad haddana mar labaad idinka isku qabsataan waa laga fiican yahay marka walaalahayga waa idin salaamaya shacbiga soomaaliyeed waa idin jeclahay dhammaantiin meel walba aad joogtaan farxad iigu noolaada farxadna ku waara dhammaan shanta gees ee soomaalida I love it waan jeclahay waxaa idinkaaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu